اوكي سؤال runtii aad weydiisan hadan ka jawaabo saami qaybsiga ku saabsan iyo doodii ay keeneen runtii odayaasha ka soo jeeda awdal ko horta markaynu qaranimo ka hadlayno qofka soo muwaadina waxa jira sharci arrimood xaq u leeyahay oo qaranimada tilmaamto qof inuu wadani noqdaba iyada inta badan keentaba oo waa maxay ko waa in dadku ay wada helaan muwaadiniintu adeeg bulsho isku mid ah waxbarashada caafimaadka hargeysa boorame laascanood waa in isku mid noqdaan waa in runtii fursado dhaqaale isku mid ah la hela oo lagu kala duwanaanin oo fursado dhaqaale waa in loo sameeyay waa in matalaad sax ay jirto oo qofkii cidda matalaysa si sax ah waa inuu helaa cid matashaa qodobka farandada waxa weeyaan khayraadka dabiiciga dalku leeyahay waa in si siman loo qaybsadaa ka shanaadna waxa weeyaan xuquuq siman waa in muwaadiniintu leeyihiin shanta arrimood waa shanta shay qofka qaranimada ku abuura qofkuna uu dalkuna uu qaran ku noqdo qofkuna muwaadin dalkiisa jacayl ku noqdo haddaba dooda ay keeneen gobolka awdal ay keeneen marka sharciyan hataa aynu eegno doodaasi waa dood sharci ah waxa sharci ku tahay ko markii 2005 xeerkan la sameeyay xarga golaha wakiilada ee doorashada la qabanayay waxa lagu heshiiyay xeerka lagu qoray hal mar in lagu galo waxaan sheegay qodobka 12aad ee xeerka doorashada golaha wakiilada in hal mar kaliya lagu galo ayuu sheegaya waxa kale oo beelay waqtiga joogay adraafta ka soo jeeday lagu heshiiyay in tirokoob sax la qaban doono markaana iska dul qaataan oo runtii mar dambe waxa la hagaajinayo tiimaanta ma dhicin oo tirokoobkii lama qaban number 2 hadda ma kan eegno golaha wakiilada beelaha adraaftu inta saamiga ay ku leen ma kan eegno waxay kaga fiicnaayeen markii ay beelaha ku fadhiyeen in golahii wakiilada ka horeeyay ee beelaha lagu soo doortay kaasay kaga fiicnaayeen sababtoo ka gobolka awdal wuxuu ku lahaa 16 marka la isu geeyo gobolka gobolada barina waxa ku lahaa 15 maantana waxa ku leeyeen qoran waxa ku leedahay 14 awdala qoran waxa ku leedahay 10 xubnood marka waxa tilmaamaysaa in kii beelaha caadiga ah kan uga fiicnaa maanta ay ku fadhiyaan ayay tilmaamaysaa qodobka kale halka raacaya waxa weeyaan waxa la yiri golaha wakiilada saami qaybsigiisa waxa lagu saleeyay siday ahayd Soomaaliland 1960 in 1960 gumeysi baa sameeyay sameeyay muxuu ku saleeyay qaab cilmi ku musalayn saami lagu masalayn tirokoob lagu masalayn diiwaan galina lagu masalayn marka taa macnaheedu waxa weeyaan ma noqon karto xaynda markasta la qaato oo isagu noqda sharci noqda ma noqonayo qodobka faraad raacay waxa weeyaan doorashadu way dhacday golaha wakiilada markii ay dhacday xildhibaanaha soo baxay xildhibaanada soo baxay qaar waxa ku soo baxeen kun qaarna waxa ku soo baxeen 12 kun taas maxay tilmaamaysaa qaabkii saamiga loo qeybiyo goboladii qaabkii dadka xildhibaan loogu qeybiyay inaan sax ahayn bay tilmaamaysaa marka talafdigeeduna waa cadaalad darro jirto raba in la saxo taa waxa ku raacaya hadda golaha wakiilada saami qaybsiga ay ku leeyihiin muxuu ahaay gobolada bari iyo awdal marka aad eegto ababra dhigto beesha dhaxay qaybaha ay ku leedahay babra dhigto iyo laftigeeda waxa ku muuqnaanay cadaalad darro sababtu waxay tahay gobolka awdal waxay ku leeyihiin xubnaha hadii golaha wakiilada ku leeyihiin waa 14 xubnood beesha ka soo jeeda galbeedka burco beesha ka soo jeeda bariga burco beesha ka soo jeeda galbeedka hargeysa intu way ka badiyeen marka maxay tilmaamaysaa halka laftigeeda hadii qaabkii xataa beelnimo hadii lagu qaybsaday loo dhigo inay runtii laftiga aan isdheeli tireen oo runtii ay farq weyn u dhaxeeyo tilmaamaysaa intaas oo dhan marka aad eegto waxa ku cadaanaysa cabashada oranaysa golaha wakiilada hada dib ha loo eego dib ha loo saxo inay sax tahayba ayaa ku cadaanaya cadaalad darro inay jirtana way ku soo baxaysaa ha ku soo baxday su'aashu waxay tahay xalku muxuu noqonaya xalka horta ugu fiican ee lagu wada qanci karaa waa in tirokoob la hela laakiin tirokoob maanta suurtagal maaha doorashada in la qabtaa la rabaa doorashada inay dhacdo waa la rabaa 15 sano bilaa doorasho leeyahay tirokoobna lama qaban karo xalku wuxuu yahay anu xalka waxaan u arkaa sidii beriga hore loo galay xalkii la keenay xal lamida in la keeno maanta oo muxuu ah xalka beriga la keenay guddi baa la saaray guddidii la saaray baa soo la faguray dhammaan aragtiyada lagu heshiin karo kadibna aragtidii iyagu oo arkeenay macquul tahay bay keeneen
maanta anu waxaan qabaa koo horta in loo kordhiyo gobolada bariga iyo galbeedka in loo kordhiyo ayaan qabaa sidee loogu kordhinayaa waa in madaxweynaha qaranka uu saaraa guddi waanu saaraa heer qaran ah guddida heer qaran waa inay baadhis ku samaysaa qaabka ugu fiican ee hawsha loo geli karo waa inay fikradda soo dhaweysaa waa inay keentaa qaabka loogu kordhin karo xubno gobolada bari iyo kuwa galbeeda ay keenaan kadib arrintaasi madaxweynuhu waa inuu go'aan ku qaataa qaabkaana hadda lagu galaa muddada lagu galaya kanun ay ahaataa golaha wakiilada intuu marka la doorto kadibna la galaa si tiro koob saxa loo samayn lahaa oo gobolkaasi xaqiisa u heli lahaa loo sameeyaa taasi waa qodob muhiim ah taasaa waxay keensan kartaa maanta xal dhexdhexaad ah inaan helo suurtagal maaha in la yiraahdo saami qaybsal aan lama gelayo suurtagal maaha doorashada in la qaban waayo laakiin xal dhexdhexaad loo baahan yahay oo labada qoloba iskugu yimaadaan xal dhexdhexaadna wuxuu iman karaa qolo kasta in wax loo ogolaada wax la siiyo ay ku qancaan taasa maga wax lagu qaban karaa qodobkan halkan raacay waxa weeyaan dooda gobolada awdal ay keeneen ee oranaysa saami qaybsal aan ma gelayno waxa looga baahan yahay in options keenaan حلول وين لكان ما كليا بوسيشن قف كل يستعجل قالها وكيلة حبناها كالسعودية ودودا يا إنا سامي بس اللي جالي كرين كالسعودة جبرة أو ضل أكرم أنا وحقوا أن مك هدود وضعنا مات نشري تمسنا فديي أو حلقة كتنا مع مات الضاد إنه كانوا يسقوا وقت جاء دير هيس إنه وحكوا حليو إنه الضاد كو كانوا يسقوا هيسي مات إنه فراوح أمو قطعنا كرسي جيس هربان كرسي عاد كيستوب waxaan qabaa isagayna ka xirantahay leesa shaabcooynaha awdal iyo bariba inay u furantay iyagu inay ka doodaan xaqooda ay raadsadaan laakiin se qodob aad looga dhawajiyo oo ayaa jooranaya ha lagu qaybiyo 50-50 muxuu ahay in beesha dhaxa iyo 50 adraafta anu arinta waxaan u arkaa 50-50 waxa loo qaybin karaa golaha guurtida sabaha golaha guurtida wuxuu ku sameeyay qaab beeleed baa loo fadhiyaa marka isay qaab cadaalad in lagu saleeyo oo belu u simeeyay waa fiican tahay laakiin golaha wakiilada ma ka noqoto golaha wakiilada population baa lagu fadhiyaa tira lagu fadhiyaa isaguna wuxuu sax noqon karaa oo kaliya tira koob marka la helo inta ka horeysa waa maxay inta ka horeysa waxaan lagu siiyay heshiyo oo wax lagu sii sugo ayuu may noqonaysaa bal waxa oran karaa waxa ka fiican ba oo cadaaladda ugu dhow 50-50ga in la iraahdo hal lagu saleeyo gobol kasta doorashada markuu galo codka u soo baxa codka u soo baxay gobolkaasi ayuu ma wax loo qiimeeyaa codkii guud ee la doortay kadibna waxa gobolkaas u soo baxaya inta xildhibaan u heli karo waxa kale lagu saleyn karaa taa mid ka dowladda diiwaangelin sax maanta ma hayno laakiin diiwaangelin sax hadii la sameeyo oo gobolada bari si fiican looga sameeyo oo galbeedka laga sameeyo oo dhameystiran isaga lafdigiisu wuxuu noqon karaa wax lagu saleeyo ma aha wax qariib ah wadana caalamka qaar baa ku isticmaalay oo raashi ay kamid tahay oo ku saleey golahooda wakiilada marka runtii waxaan leeyahay qodobkaasina wuxuu u baahan yahay in wixii beel aynaan ka dhigin sababtoo maanta Soomaaliland way ka guurtay qaabeelaadkii doorashada golaha wakiilada sida beel ma noqon karto oo xataa beel hadii lagu siiyo 50 qaado 50 ga ayaa sii qaadanaya beeshaada intaas u sii qaybsamaysaa qolkaas inay badsatay rabta sidee lagu kala qaybinaya dood adag bay maraysaa waa gobolada lagu saleeyay tira lagu saleeyay marka qaab cilmiyeed tira mooyee lagu saleeyay mooyee qaab beeleysan kuma noqon karto muxuu ahaay qaabka doorashada loo galaa hadii beel la galana total system kan aynu ka sheekeynay iyo maamul wanaag iyo waxaan laga sheekeeyaa meesha ka baxayaan qaab qabiil baa la galaya marka waxaan qabaa qaab runtii imka ugu fudud waxa weeyaan in wax ku meel gaar ah la sameeyo lagu heshiyo hadhowna tiro koob sax la sameeyo kaas cadaaladda ugu dhow sidaas aan rajeynayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh way gariiqaan doodaasi ka soo baxday madax dhaqameedka gobolka awdal mashruuc oo soo sharay darro doodaasi ka soo baxday oranaysa waxaan rabnaa xuquuqdeedii naga xaq bay u leeyahay maadaama qodob sharciga jiro oranaya hal mar baa doorashada lagu gelayaa qaabkii hore qodobkaas saba sheegayaba marka qaab kale in la saxo de waa in la saxo loo baahay waana dood xaq u leeyihiin laakiin doodooda wax la socotaa waa in iyaguna keenan options xulul waa in keenan iraan xalku waa 1 iyo 2 iyo 3 ay keenan oo dhinaca kalena ay eegaan oo la fagura oo qofka hal mar haduu taagnaado de xalkii ma imanayo in la soo dhawaada muhiima ummadana waa mid ama la ascaana ka soo jeedo ama boorama ama hargeyso hal qof baan wadana hal dad baan wadana gabigeena bado markab Chinese leeyahay inay wada qaadaya marka waxaan leeyahay waxba yeeran qabiil isu kala qaybinayna doodeena muwaadiniin hayn wada noqono qof kasta muwaadin hal la tixgeliyo dareenkiisa dad badan oo waan arkay diidan muxuu ahay waxay soo bandhigan gobolka awdal xaq bay u leeyahay waan muwaadin xaq bay u leeyahay lama diidi karo sida ka hargeysa joogo xaq ugu leeyahay marka in la isla rogrogo oo la isla eego ayuu maamul xalka la raadiyo